ayaanu dileynay kulan wacan oo wanaagsan saaka sidaynu ka warqabno waxa guud ahaan dalkan Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada Soomaaliland iyadoo ay ku beegan tahay 13 bisha November 2017 maalintaas oo ah maalinta shacbiga Soomaaliland ay guud ahaan sugayeen in ay u dareeraan doorashada madaxtinimada dhammaan gobolada Soomaaliland ayaa maanta looga dareeray goobaha codbixinta taasi oo doorashada ku saleysan tahay 6 gobol oo ah habkii hore ee doorashadii ugu horeysay lagu galay doorashada habka 6 gobol ee ka socota Soomaaliland ayaa waxa ay tahay maanta si dardar leh mid ku bilaabatay halkan aynu joognaa waa bartamaha magaalada Hargeysa waa fagaaraha khayriada ee caasimadda Hargeysa waa goobta ugu badan dalkan Soomaaliland ee dadka shacabku codkooda ay kaga ridaan iyada oo doorashadu ilaa imika dadku ay u codanayaan qaab nabadgelyo ah oo ah hab aad u wanaagsan wax ilaa imika nabadgelyada kullidiya oo haba yaraatay meel laba ka dhacayna aana jirin dadka soo codeeyay baan bal qaarkood jecelahay in aan weydiiyo bal ra'yigooda magaca walaal marka ugu horeysa magacayga waxa la Salabaan Ciise Maxamed alxamdulillah Salabaan ma codeysay saaka waan soo codeeyay si fiican goobtii aan ku qoraa ayaan hore u tagaano kaarkayga sita isla markaa doorashadu si nidaam leh bay u socotay marka halkan kelmiyad waxaan doonayaa inaan mariyo doonaha reer Soomaaliland waxa inoo tahay doorashada doorasho muhiim ah guushuna waxa weeyaan Soomaaliland oo guuleysata waxa ku xiran tahay iyadoo doorashadaasi dhamaanteen nabadgelyo noogu dhacda madaxweynaha inoo soo baxana dhamaanteen la wada shaqeyno Soomaaliland guul baan rajaynayaa cadawga Soomaaliland kan xinibaan doonayaa doorashadana ay noqoto doorasho garaysa hore inoo sii wada itiraafkeena wax ka tarta amnigeena nabadgelyadeena iyo barwaaqada aynu higsanana inay gaarsiin insha Allah taala aad iyo aad baad mahadsantii aad baad mahadsantahay magaca walaal bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Nuur Caydiid Axmed ma codeysay saaka saaka wallahi waan codeysay farxad la ayaan codeeyay nabadgelyo ku jirto dhammaan dadka goobaha kooda joogna si fiican ay goobaha ku jireen way codeynayeen dadku way faraxsanaayeen dadku mid kaliya ay wada noqdeen waxay dadku qaateen nidaamkii ay qaateen madaxdii siyaasiyiinta ee dhaqanka ay gacmaysaysay dadku gacmays wada haystaan nin walba ku jecel yahay waa codeynaya si fiican baa inoogu dhacday waad ka soo baxday imika bal waxaad naga warantaa qaabka doorashadu ama goobta codbixinta ee ka codeysay siday u socotay nidaamkeeda habkeeda dadka sida loo soo dhaweynayay bal warbixin yar naga sii dadka qoladan komishanka ka socotay codeynayay si fiican bay wallahi dadku qaabilayeen dadka waa la soo dhaweynayay wixii dufana gacanta laga masaxayay ay ku leeyihiin waxa kale oo laga waxa leeyay kaarkooga si fiican hawl waa la soo tabaabashay si fiican bay uga socotaa hawlo intee la bad ku jirtay kuwiga goormaad soo gashay maadaama durba ka soo baxday xilligan anigu horta xalayba farxad bay xalayba ma saxan hurdadii waxaan u daayay jamhuuriyadda Soomaaliland inaan wax tarcodkaygu u noqdo waan ku jiray afartii
iyo wax dhiman baan sabka xal joogo aad iyo aad baad mahadsantahay dadweynaha kale ayaynu jecelahay bal inaynu iyagana eegno kuwa aan weli codayn adigu halkaagii baad seetaa weli imka doonaysaa inaad gasho magaca jaamac maxamuud gaal jaamac waxaad u diyaartahay inaad soo codayso bal nooga warran jawigaaga dareenkaaga wallaahi aad iyo aad alxamdulilah rabbil caalamiin wax dhibaatay ma jirto waa sugaynaa haddii laakiin dhiga xilliga naloo yeedho kaadh iminka kuligaad ku jirtaan magacaadiga walaal axmed maxamuud cabdi axmed nooga warran bal hadda ayaad ku socotaa adigu inaad soo codayso sama haa aad baan u faraxsanay goobtan khayrada ayaad ka codaynaysaa maanta ku codaynaya sifir santarka silsildarkaas ka codanaysaa aad baad u mahadsantahay aad baan ugu faraxsanay annagu waan codaynay waa hagaag magacaaga ii sheeg walaal maxamed aadan soo codaysa haa codkaagii waad ku ritay maxamed bal nooga warran qaabka aad u soo codayseen goobtu siday tahay sida shaqaalaha komishinku ay u shaqaynayaan tani horta dadku qofka siduu wax arko wuxuu sheegaa moogtay annagu arday baanu nahoo waxaan si guud baan u qiimayn karnaa marka wallaahi niyow halkaasan ka soo lugayay moogtay saaga baawur muu jirinoo meeshaasan soo marayoo markii dambana goobtaydii baan tegey marka niyow waan yaabay dadkii iskartuma badnaba dadkaa wax nidaaminaya shaqaalo si wanaagsan bay u shaqaynayaan ummaddu isku wada kalsoon tahay dee alxamdulilah wax kale lagu soo ururiya kalmada alxamdulilah baa lagu soo ururiya alxamdulilah rabbil caalamiin aad baad mahadsantahay magaca walaal adiga cabdiqani ismaal warsan waan codeeyaa si fiican bal ka warran dareenkaaga dareenkaygu aad iyo aad buu faraxsan yahay maadaama hawshaydii gutay qofna aanu iga horreyn 26 juun qofkii iga horreeyay codeeyan ahaa aad baad mahadsantahay iminka waxaa halkan isaguna taagan nin odaya oo agteeda taagan dadka soo codeeyey sida farihiisa ka muuqda weeyaan waad arkaysaa waayeel dhallinyaro dadka dhexe looma kala hadhin maanta magaca walaal ibrahim jaamac giiraa la yidhaa mister giirre bal nooga warran saaka iyo dareenkaaga goormaad soo kacday goormaad kuyuga gashay bal nooga sheekee sidaad u codaysay 3 habeennimaan soo kacay aniga oo leh kuyugu yaanu kaa buuxsamin aad waanan codeeyey alxamdulilaah si fiican baanan ugu faraxsanahay dadka guud ahaan haddii aan ka warramo shaqaalaha ka shaqaynaya doorashada madaxtooyada ee maanta oo isniina bishuna 13 tahay shaqaynayaa waa dad aad u qiimo badan dadku isaga ishabaynaya isaga isnadaaminaya askar uma baahna cid xaggan waxaa uma baahna ummadda reer somalilan si buuxday ugu qanacsan tahay maanta doorashada ka jirta dalka waxaanan rumaysnahay reer yurubka horaanuu marnay leh maanta halkay somalilan marayso ma maraya alxamdulilaah alxamdulilaah aad baad mahadsantahay kaas waxaa waa giirre oo ka mida dadka isaguna soo codeeyey oo dareenkiisa ka dhiibanayay bal sida uu arko magaca walaal waxaa la yidhaha mustafa cabdi xamdulle ma codaysay saaka walaal hawa soo codeeyey dareenkaygu aad buu kacsan yahay waddankuna waa nabadna waan ku codaynay waxaan u rajaynayaa dadkayga khayr dareenkaaga aad buu wanaagsan yahay aad buu wanaagsan yahay nabadgelyaduna aad buu wanaagsan tahay nabad baan ku codaynay dadkaygana waxaan u rajaynayaa nabad inay ku wada codeeyaan asalaamu calaykum mahadsanid guud ahaan bal shacbiga Soomaaliland ku nool magaalada Hargeysa fagaaraha khayraad oo ah halka ugu weyn ee dadku codkooda ay ka dhiibanayaan oo ilaa goobo tiro badan ka kooban kuwaas oo ka mid ah tirada ka badan 600 ee goobood ee maanta guud ahaan dalkeena looga dareeray magacaaga sheego bismillaahir rahmaanir rahiim cabdiraxmaan ibraahim maxamed baleeraa waxaan ahay muwaadin ku nool Soomaaliland Hargeysa xalay 4 habeenimo soo kacay si aan codkayga iyo shucuubteedu dhibto wax walba waxa ka weyn qarannimada iyo nabadda Soomaaliland waxaan leeyahay maanta foodka halka uu taaganay nabad buu ku yimid Soomaaliland meel bay tahay waa walaalo waa uliya dirkeed asxaabtu meel ugu kala duwan nabadda meelaha looga soo wada jigto qof walba ciidamada ammaanka dhankaaga la qabo oo la shaqeeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa guul iyo gobonimo Soomaaliland bari min galbeed waxaan leeyahay walaalayaal dalka inaga leh inagu inaga burburay hadduu maanta burburo hadduu dhismo inagu inoo dhismaya waxaan leeyahay walaalayaal meel aan uga soo wada jisay noocyada Soomaaliland kuwa inagu nool gudaheena iyo kuwa dibadda inaga jiraba ciidamada qaranka Soomaaliland aad baan u hambalyeynaya labada ciidan ee booliska iyo qaranka waxaan leeyahay waan idinku taageersanay amniga sida quruxda badan ee aad ula joogtaan dadkiina aad u heeganka ugu jirtaan hadiya habeen mana ilaawi doono waxaanan ku seexanaa oon ku soo toosnaa nabad maanta jaarkaygu ma haystaan intaan leeg shucuubta maanta aan u soo baxnay waxa weeyaan inaan dhiibano mowqifkayaga
oo si nabadaa ku timi oo xornimaa ku timi waxaan leeyahay qof kasta oo Somaliland maanta guul baynu taaganay qof walba askari baa tahay qof walba military baa tahay nabadda ka joog wax kasta waxa ka weyn calankeennaasaa ka weyn waa asxaab waan tartamana laakiin ku kala tagi mayno meesha walaalayaal waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaan leeyahay nabadda meel aan uga soo wada jeedsanno oo aan ciidanka taageerno oo ciidamada dibadda aan taageerno oo kuwa gudaha aan taageerno oo aan qofkii xum ee khalkhal wada aan meel uga soo wada jeedsanno kuyuguna wuxuu u socdaa si habsamiya dhammaan shaqaalaha ka hawlwanada komishanka doorashooyinka inkastoo yara gacan culays lagu dareemayo laakiin si fiican bay wadaan waxaan leeyahay nimadaasna buuqa laga daayo qofkii buuqa safka ku wadana dhammaan meel aan uga soo wada jeedno runta aynu sheegno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام aad iyo aad baad mahadsantahay kaasuna wuxuu ahaa cabdiraxmaan oo ah muwaadin ku nool magaalada Hargeysa kana mid ah dadkii saaka soo kalahay in saacadii subax ee codkooda halkan ka dhibtay magacaadiga walaal aniga waxa la yiraahdaa Axmed Ibrahim Cabdi Axmed adigu weli ma codaysay waan codeeyay walaal saakaan codeeyay baliga waran dareenkaaga maanta maxad dareemaysaa dareenkayga walaal aad buu wanaagsan yahay alxamdulillah waxaan dareemaynaa farxad baan dareemaynaa saasoon ku gudanay foodkii oo qof kasto muwaadin oo kaarka haysta xaq loogu leeyahay waxaan halkan ka bogaadinayaa ciidamada qaranka ee kala duwan komishanka doorashooyinka howlwadeennada dadka footaynaya dhammaantoodba aad iyo aad baan u salaamayaa waxaanan leeyahay sidaa aynu maanta isugu soo baxnayn u footayno nabadgelyadana aynu ilaalino saddexda xisbi qaran kii soo baxaaba waa keenii kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم مقعي محمد أحمد قله dareenkaygu aad buu fiican yahay maanta waxa weeye waa maalin weyn reer Soomaaliland ku weyn waxa weeyaan saaka salaadii subax markii laga soo baxay ayaan soo kaxay waxaan u soo kacay inaan codeeyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan codeynayaa codkana waan suginaa insha Allah halkaaga waqtiga diyaar baad inaad ku rido diyaar baan hay kuyugana waan ku jiraa dadkana waxaan leeyahay amnigiina ilaashada dadka reer Soomaaliland waayo ammaanku waa wanaagsan waxa weeyaan dadku waxa ku nool yihiin waxaan leeyahay ciidamada qalabka sida iyo ciidamada migrantska booliska la shaqeeya kiina dareen aad aragtaan dareenka qabta insha Allah bismillaah kariim way imika ku yibaad ku jirtay kaalkaaga university wad ka soo baxday marka noqoto halkaaga ma ka gali karaysaa halkaaga waan ka galayaa nimanka ka imid doon ku dhiisi ilaalin nimadii ugu horeeyay kuwiga dambeeyay insha Allah marka taas waxay muujinaysaa in nidaamka iyo habka uu wanaagsan yahay wax sirxiixa iyo wax libaati midna baan jirin magaca walaal Axmed Jaamac Xuseen baa la yiraahdaa doorashadaasi walaal aad baan ugu faraxsanahay xalayaan waxaan soo baxay labadii habeenimo waxaan codeeyay ilaa 7 iyo barkii subaxnimo aan codeeyay doorashaduna si habsami ah u socotaa ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay dhammaan kii soo baxaba waxa weeyaan nin u soo baxay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo baxay dhammaan waa inaan hambalyeynaa meel soo wajeesanaa nabadgelyada iyo ammaankeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Axmed aad baad mahadsantahay aad iyo aad bal muwaadin kale ayaan markii eegaysnaa inaan u dhiibo oo raygiisa ku dhiibto sidoo warka doorashada soo socota maanta anigoo maxamed ali axmed waxaan leeyahay doorashada si wanaagsan baa u dhacaysa kii soo baxana ha lagu yimaansado nabadgelyada si wanaagsan ha loo ilaashado saa weeye gobashinka noo dhacaya asalaamu calaykum waraxmatullahi aad baad mahadsantahay walaal fagaarahan khayriyeed ee magaalada Hargeysa oo sidaynu sheegnay goobta ugu weyn ee dadku ay codkooda kaga ridanayaan ayaanu dadweynaha kala duwan ee nooc walba leh qayb kasta leh dumar rag dhalinyaro waayeel hablaha dhalinyarada codeynaya baan qaar ka mid ah la kulan magaca walaal aniga Fatxiye Cabdi Cali baa la yiraahdaa saaka waan soo toosay waxaan ku soo baxay inaan soo codeeyo amniguna si fiican buu sugan yahay codeentana si fiican baa loo codeynayaa imikaana soo codeynaa insha Allah imikaad ku socotaa doonaysaa inaad ku soo rito imikaan rabaa inaan ku soo codeeyo aad baad u mahadsantahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka salaamayaa telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan salaamayaa saddexda xisbi qaran ee u tartamaya doorashada qaranka Soomaaliland insha Allah taala waxaan rajaynayaa mid wanaagsan oo dalka iyo diinta iyo ummadda cadaalad iyo sinaan ku maamulay insha Allah taala wax aan jeclays lahayn insha Allah taala waxaan rajaynayaa in nabadgelyo iyo amni oo ku soo dhamaado ummadda Soomaaliland insha Allah taala sida horumar iyo ictiraaf iyo wanaag ku gaadho insha Allah nin waliba xaqiisa helo insha Allah taala waan salaam insha Allah taala ciidamada Soomaaliland ciidanka qaranka tahay booliska haday tahay ila saraakiishiba halkan marayso oo iyaguna u diyaara in sidii amniga u sugi lahayn taliye inooga warbal saaka soo socdaan bismillaahir rahmaanir rahiim saaka waxa ku muuqda fagaaraha khayriyada oo 4 goobood inay si fiican uga socoto doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo dadweynuhu aad iyo aad isku soo baxay waxa ay aad iyo aad uga shaqeynayaan amniga annaguna waxaan diyaar u nahay inaanu kala shaqeyno
waxaanay dadku maanta dooranayaan madaxweynahoodii mustaqbalka nabadgelyaduna aad bay wanaagsantahay wax dhibaatooyin ma jiraan Soomaaliland waxaanu leenahay farxad ku ciida nabadgelyo ku doorta nabadgelyadana ha la ilaaliyo kii soo baxaana waa madaxweynaheennii shacabkeenu tumina waanaynu hambalyeynayna aad baad mahadsantihiin goobtan oo iyaduna ah isla goobaha kale ee ka kooban tahay fagaaraha khayryada waxaad arkaysaan siday dadku inoo sheegeen dadka qaar baa labadii habeenimo soo kacay qaar baa saddexdii soo kacay dadka qaar baa afartii soo kacay iyada oo kuridda codku ay bilaabantay saaka 7dii markay ahayd ilaa iminkana ay qaab habsami leh ay u socoto oo doorashada dad fara badani ilaa iminka ay ku rideen dad badan oo ka mid ah shacbigeenu iyaguna ay sugayaan in ay ku ridaan iyadoo ilaa 6 galabnimo ee galabta haddii ilaahay yidhaahdo ay socon doonto in codbixintaas magacaadii walaal axmed maxamed ismaaciil axmed ma soo codaysi mise waad sugaysaa markaan sugaal waxaan imi saddexdii xale baan imi dee si wanaagsan u socota laakiin waa yar cays العكس maxaad uga jeedaa waa dadkii baa farabatay meeshana way markaa nabadgelyaduna si wanaagsan bay u socotaan markaa waan taagana weli aad baad basatay magacaadii walaal aniga waxaa la yidhaha barre cabdi cusmaan barre macdasi may weli waan codey kuyugan ku jiraa kuyugan ku jiraa waxaan imid afartii saaka bal ka waran jawiga saad u aragtaa maanta u wanaagsan yihi si wanaagsan bay u socotaa doorashadu in yaroo gacan culeysaa ku jirta qoladanka meesha la keenay dadka kala wadayn wax kale ma jiraan si wanaagsan wey dhalinyarada iyaguna saaka halkan doonaysa inay ka codayso ma soo codaysaa deer mise iminkaad ku jirtaa kuyuga iminkaan ku jiraa kuyugo magacayga axmed naasir cabdiraxmaan cabdilaahi ilaahay waxaan ka baryaa saa fiican doorashada inugu socoto inay inugu dhammaato saa fiican doorashada inugu socoto inay inugu dhammaato ilaahay waxaan ka baryaa inuu madaxweyne cusub oo mustaqbalkeena anfacay noo soo baxo aad baad u mahadsan tahay magacaadii walaal magacay waa Salebaan Nageye Qaalib bal ka waran maxaad ku odhanaysaa saaka qaabka ay inoogu bilaabantay doorashadan oo ka bilaabantay guud ahaan gobollada Soomaaliland guud ahaan gobollada Soomaaliland iyo degmooyinka kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay uga bilaabantay si habsami leh sidii komishanku shaaciyeenba waxay bilaabantay 7dii subaxnimo taas oo anigu waxaan imi 2dii habeenimo isla markaana waxaan ka qaatay goobta Maxamuud Axmed Cali baan ka qaatay 7dii dadkii ugu horeeyay qaatay baan ahay waxaan odhan karnaa run ahaantii ujeedadeenu iyo hadafkeenu ma aha inuu hebel soo baxo iyo inaad ka wadataa u dhaco ama uu soo baxo laakiin kii soo baxa Soomaaliland baa guuleysatay xisbi kale muu guuleysanin inaga madaxweynaha yimaada waa madaxweyne qaran mid doortay mid codeeyay iyo mid ka codeeyayba waa madaxweyne waan la shaqeynaa wax cusub oo wanaagsan oo Afrika iyo geeyigan iyo madaqadan aynu ku noolahay ku cusub ayaa ka dhacay oo ah system free and fair election doorasho xor iyo xalaal one man and one vote hal qof iyo hal checkinkeeda wadata wax lagu farxo weeyaan waxaan leeyahay anshaxa la ilaaliyo waa one day qof waliba qofku jecel yahay bil aamusli ah ugu rido codka oo uu doorto isla markaana codka uu siiyo waxaan leenahay qof kastoo reer Soomaaliland oo dalka gudihiisa jooga iyo dibadiisa joogaba waxaan leenahay halkiisa amniga ha u ilaaliyo waayo ciidanka qaranka iyo inagoo wada shaqeynaa waxaan leenahay darafyada dabaylo badan baa ka soo dhacaya marka waxaan leenahay amniga hala ilaaliyo aad iyo aad u mahadsan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii heeganka ugu yihiin inay dadkooda ka qabtiraan wararka iyo kolba xalka ay soo socoto codbixintu aad iyo aad u mahadsan aad baad mahadsantahay waa hagaag goobtan doorashada ee fagaaraha khayryada magaalada Hargeysa oo ah goobta ugu ballaaran lagu codeynaya ayay taas ahayd bal marna waxaanu eegi doonaa goobo kale oo iyaguna ka mid ah meelaha magaalada Hargeysa maanta codka looga dareeray ee ay shacbigu ku dooranayaan madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee Soomaaliland oo codka maanta dadku ay ritaan ku soo bixi doona Somaliland,
ingiriiska diray dadku waa mid qura iyo uliyadiir iyo uliyadiir diinku waa islaam cidi doori karin dusha waxaa u suran calanaan degayn waa islaam cidi doori karin dusha waxaa u suran doorashooyinkii hore ay diyaar ugu yihiin magacaaga noo sheeg walaal bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed cawil maxamed run ahaantii maanta waxaan u arkaa doorashadan ka dhacaysa waddanka jamhuuriyadda somalilan inay tahay horumarka ay ku naaloonayso ay kuna faanaysa waddamada kale ugu faanaysa inay ka mid tahay dadku si qurux badan oo nabadgelye leh oo is wada ixtiraamayaan bay u codaynayaan qofba qof ka horeeya wuu ixtiraamaya wuu ilaalinayaa taasina waa guulaha ay ku naaloonayso somalilan baan odhan karaa aad iyo aad baad mahadsantay muwaadin kale ayaa isaguna halkan garabkayga tagan muwaadin nooga warran bal saaka saad u aragtaa doorashada loo dareeray somalilan jawigu saaka aad buu degan yahay doorasho wanaagsan baa loo dareeray ilaahayna guul baan ka rajaynaya inaynu ku guulaysano oo si nabada oo fiican ilaahay noogu rido ka madaxweynaha inoo noqonaya ilaahay baa goor hore qoray laakiin shacabka waxaan sheegay inay codeeyaan ma shacabka somalilan codeeya codkiina dhiibta waa kaa dooranaysa ku doona ahaado laakiinse ku doortay qarnimada somalilan muwaadinimadana muujiya hambalyeena insha allah aad baan salaam shacabka somalilan aad baad madsantay magaca walaal magacaaga sadex waxa la yiraahdaa maxamed cabdi madar baa qeyrada maxamed cabdi madar bal sad warta saaka jawiga doorashadu soo dhacayo jooga waan inaan odayaan ugu soo talagalay inay ilaahay nabadna inoogu dhameeyaan ku daro kii soo fuulaba anigu waxaan leenahay hambaliyo ilaa imika say u socoto way saad aragtaa imika waxaan soo wareegay ilaa maxamed mooyeen ilaa halkaas soo wareegay ilaa xaafadan oo dhan si wanaagsan bay u socotaa dad kuyuga saani bay ugu jiraan waan u hambalyeynaa aad baad mahadsantahay maxamed ilaahay uu saarana aan bal hambalyaan u leenahay aad baad boqolkiiba boqol waad mahadsantahay walaal magaca walaal adiga waan istiqaal ismaalana doorashadu si fiican ma socotaa saaka waan soo codeeyay anigu waay bal xagga haweenka laftooda aynu eegno magaca walaal bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah wax la yiraahdaa faadmo sugaal bile waxaan ka codaynayay halkan xanaanada maasha Allah si fiican bay u socotaa la yaa baarig sidaas oo nabadgelyo ku dhamaanaysa baan ilaahay ka rajaynin amiin aad baad mahadsantahay walaal magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Haaruun Cilmi halkan baan ka codaynayaa 7 saaka ayaan imi wali codkaygii ma dhiiban magaca walaal adiga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdikariin Aadan Saciid Ibraahin waxaan ka mid ahay muwaadiniinta ka dhiibanaysa xanaanadan dhexe codkooda waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa inaanu si wanaagsan oo habsamiya aanu kuyuga ugu jirno iskugu dulqaadanayno waayeelkiiyo dadkaa la horraysiinayo dadku ay isku tanaasulayaan una adkaysanayno cadceeddaayo baasha ilaahayna waxaan ugu mahadinaynaa wax dhiba maannaan arag dadku waa dad wada dhashay waa dad isjecel alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan noogu walaalaadan cabdi ibraahim baa aniga laydhaa waxaan imi 6dii subaxnimo halkan animaadee goobtan waa goob khayr leh hase ahaatee dadku caadi bay socdaan kayugu waxaanu rajaynaynaa isbeddelkaa khayr leh inuu ilaahay mid diinta iyo dalkaba anfaca ilaahay noogu beddelo insha allahu tacaala waa hagaag muwaadin kale halkan garabka tir magaca walaal magacaygu waa Askari Cabdirasaaq aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadnaqaynaa nabadgelyadaan haysanno magaca walaal adiga magacaaga magacaygu waa Mustafa Xasan Ismaaciil waxaan ahay dadka ka codaynaya 26 Juun saaka 6dii ayaan imi maasha Allah kayugu meel fiican buu noo marayaa hadda ma cunay laakiin meel dhaxay maraysaa laakiin waxaan rajaynayaa si fiican inaan aanu dhibto codkayga khayrna dhammaan rajaynaya dhammaan dadku soo baxeen way u diyaarsan way u heelan yihiin safafka iyo kayugaas wada arkaysaa marka insha Allah dhammaan guul baan noo rajaynaya aad baad mahadsantahay shukran waa hagaag waxa ay halkan tahay goobta civil centerka ee bartamaha magaalada Hargeysa oo dad badani ay codkooda maanta ka dhiibanayaan iyadoo guud ahaan dalka Soomaaliland looga dareeray saaka doorashada codbixinta oo ay ku soo dooranayaan madaxweynihii shanaad ee dalka Soomaaliland 5 sano soo socota xukumi lahaa haddii ilaahay uu raalli ka noqdo
Karin, usha waxaa suran